haddii airportka laga gaarsiin waayo ilaa November annagu waxaan arkaynaa in wax weyn isbedelayaan muddo dheer waxa uu ahaa goob cidla isla mar ahaantaasna ay ku tartamaan saamilada siyaasaddu markay ku jiraan kaambiinka ololaha doorashada kuwa soo sameyn jiray ballanqaadyo kala duwan oo ku aadan ay dhisayaan madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorama balse marka ay dhamaadaan ololaha doorashooyinka kuwa doorashada helay iyo kuwa laga helay labaduba midna dib uma soo eegi jirin madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorama halkaasna waxaa ka sii socotay rajada hubanti la'aanta ah inaan waxba laga qabanaynin madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorama waxaana hungowday rajadii shacabka oo ay qabeen inay marun arkaan magaalada Boorama oo yeelanaysa madaar diyaaradeed oo caalami ah isla mar ahaantaasna hawada gobolka Awdal ay soo galayaan diyaarada ka soo degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama ee Asaaq International Airport balse xukuumadda madaxweyne Biixi oo buugay 2017 ku ololeysa oo kamid ahaa dhismaha madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorama ayaa imika u qalab qaadatay hirgelinta madaarka dhismaha ee magaalada Boorama haddii arrintan hirgasho waxay noqon doontaa mid ay ku ammaanaadaan madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa haddii arrintaasi hirgeli weydana waxay noqon doontaa inay mar kale halkeedii ay ka sii socoto rajada hungowda ee shacabka reer Awdal isla mar ahaantaasna uu madaarka Boorama waa aad mid aanan xayndaabka hadda lagu wareejiyay aan dhaafin albaabadu xidhnaadaan Bashiir Maxamuud Yuusuf oo kamid ah qurbajooga reer Awdal oo maanta kormeer ku tagay madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorama ayaa waxa bulshada gobolka Awdal qurbajoog iyo qolqoljoog iyo xukuumadda Soomaaliland si degdeg ugu baaqay in mudnaanta koobaad la siiyo dhamaystirka dhismaha madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorama bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa dhammaan ummadda kilibkan daawanaysa meelkasta joogaanba waxaan joogaa maanta markii shanaad ee airportka Boorama aan soo booqdo maalinba marxalad buu marayay maanta waa marxaladii feeskii koowaad baa la dhameeyay waa la kabisay waa la xaadxaaday waa la isku simay laakiin weli fari kama qodna faanoole wuxuu u baahan yahay hawl intaa ka badan markaa kolley waanu soo wareegi doonaa waa arki doontaan terminalkan iyo dhismihii hore qadiimka hawaa sidoodii waxaa laga bedelay ma jiro inkastoo ii sheegay maamuluhu in miisaanada lagu daray oo la dhisi doono terminal cusub oo xagga dambe loo riixi doono waa arrin aad u wanaagsan laakiin muhiimaddu waxa weeyaan kulmiye maalintuu kaameenka bilaabay xukuumadda Muuse Biixi waxay ballan qaadeen in ay airportka Boorama dhisi doonaan ka Hargeysa dhisi doonaan ka Berbera dhisi doonaan at least muddo laga boogo 7 sano imika waxaad arkaysaa in garoonkii xaadxaaday maandhowto oo kumbani lagu soo siiyey contractgaasina weli maanan garanay intuu qiimihiisu ahaa laakiin de airport maaha kani waayo kani waa dhulxaad sa iga muuqata airport ma tilmaami karo airportka waxa uu yahay inuu ahaado concrete iyo asfaltkii oo runwayga ah oo aad u qiimo badan taasina wuxuu u baahanayaa maanta airportkaasi markaan qiimeeyno hadduu ugu badnaado 2 milyan wax ka yar baa ku baxaya 2 milyankaasi dowladda Soomaaliland may waayin laakiin waxaan malaynayaa in weli wax sii yihiin ama kuwa wadanka gobolka u dhashay ahaadaan ama ha ahaadaan kuwa Soomaaliland wasiirada ka iyo dowladda xukuumadda Soomaaliland ama kuwa kale ee wadanka u dhashay reer Awdal baa ahaadaan waxa weeye hakrasho farabadan baa jirta airportkan in laga sheekeeyo airportka waa saas loo baahna waxa loo baahan yahay wax qabad iyo dadaal waxaan u baahanahay samarka dambe in ka soo degaan diyaaraduhu iyo dadka ka imanaya qurbuhu iyo runway iyo cargo intaba marka si taa loo helo waa in la hawlgeliyaa la dedejiyaa arintii airportka maaha in la xaadxaado oo airportka aan dhisnay 7 sano kadib airportka 2 milyan buu baahan yahay kumbani international baahan yahay la siiyo oo wadooyinka dhisa ama airportka dhisa marka kulleeba waxaan leenahay hakrasha jirta anagu haddaan qurbajoognahay waxaan leenahay haddii aan xukuumadda awood lahayn ay ku dhisto maanta annaga diyaar u ah oo dhaqaalaha gelina airport international ka sameeyay hanagu soo wareejiyaan waayo 7 jeer baan u tagnay madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland weli wax aanu arkayno maantii wax la hadlay in rodol maxaa loo airportka xaydaanka loogu sameeyay waayay maxaa loo dhisi waayay waan dhisaynaa madaxweynaha laakiin diyaaradda ka baxay buu imka airportka xaydaankiisa sameeyay madaxweynuhu waanu ku mahadsan yahay runtii laakiin weli hakrasho farabadan baa jirta ama xagga noqoto maaliyadda ha noqoto ama xagga xukuumadda ha noqoto ama xagga siyaasadda ha noqoto waxaan leenahay ummadda reer Awdal ee qurbaha joogtaana waar haddaad dadaashaan oo u soo dadaashaan airportkiina iyo dhulkiina oo iska daysaan waxyaabaha nonsense-ka ay ka sheekeynaysan aan cunufka ay keenayay aan macdan badan u sameeyeen ummadda waxa loo baahan yahay ummadda horumar bay u baahantay dhaqaale si loo sameeyo u baahantay deganaansho u baahantay
wax soo saar bay u baahan tahay waxbarasho u baahan tahay laakiin haddaan ka sheekeeyo xumaan iyo waxaan jirin anigoo aan waxba ku kordhinayn waa ayaan daro marka qolina qurbo waxaan leenahay haddii inay waxba kusoo kordhinayn ummadda afxumada ka daaya dadka ciddii doonaysa inay airportka wax ka qabatay dhisto waxaan ku leenahay welcome xukuumadda waxaan leenahay marka ugu horeysa adiga awoodii leh xukuumaddii leh xukunkii haysta kaambeenkii diyaar ah haddii airportka laga gaarsiin waayo ilaa November annaga waxaan arkaynaa in wax weyn isbedelayaan marka waxaan leenahay cali ciddii diyaar waa airportka inay dhisto waxa u baahan yahay waa 2 million maanta salary garan kara waa very easy ama xisbiyadu ha keenaan ama mucaarad ha keeno ama maxaafid ha keeno ama dowlad ha keento annaga ciddii airportka dhisaysa waxaan leenahay welcome soo dhawow